أبون والله واحد يديته كيك سيا واحد سيسا ها ورتبيه يدي يعني يو بيسمى يلي يا كي بيا كي دحمس كوا وينا كوا وين مكان oo yaalan talaagada أنا خلاص بحيس كده عادي سوق وتا kuwa shaku waa شنو حياة 5 kun iyaga kuwa qaaliyo شنبا إيه سوق وين شفت كان يدي imisa وكان kila kawa وين تاني مسوي 8 kun سدلكم وتقول أنا سا kuma garanayaba تانا قرش هذا نوقف عنتها يا قرنا يا دقة روح عسكري سوق اللي يطلع والله مكسية والله لا يقطعتي لعق من السنة نقول والله adiga kii shod واحد مكوش يا قال ده نيجا دواتنا والله adiga kii وش أنا أتبج قال نيجا دواتنا نيجا دواتنا اليوم adiga kii wallahi igu xadgudub wallahi adiga kii xadgudub wallahi يا نطاق كاس صار ريتشو دبان نيجا دواتنا adiga kii wallahi awaadi tahay wallahi قال يجا سوق هذا يو قال يجا قات نوع عجا والله أنا ما تبغى نيجا دواتنا والله سن والله وريا adiga wallahi kii waalan tahay wallahi وانا هذا أنا ألعب كيس كقاعدة نساعد كده جت هاي والله تم أريا إنا دول كاس الرابع وجبته أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد يا محرق حوار هذا ألعب تبغى قاتلك وأنا نقول هو أنا كنا لعب مسجد إنه مركز واحد نويدين يسقى أجنبي عندك كم عبرتني كذا بسيط ياسين ما إنه وحي وإحنا ويدي واروح وقع نبي دلك وما دلان أنا قبل دوني أنا وكوب شاهي كعبين ونقدر العشي ونقدر هذا يسعى كاغو وحوي الدولة دينا يدستور كين السومالي لا هذا كيس سديدات في خديس صدحات waxay dhigaysaa qof kasta oo shisheeya oo sifa sharciya oo magangeliyaha wadankeena ku jooga inuu leeyahay xuquuq la mid ah ka muwaadinka ah oo kale ma garatay hada dhigayso dana wuxuu ahay way kibrina ilaa marka laga uu kibrina waar ilaa marka laga reebo xuquuqaha siyaasiga wuxuu baani dooran karin iyana waa la dooran karin ma rabo laakiin way ganacsan karaan way shaqaysan karaan dadka kamid marka inaad ku tacadiini soo sifa sharciyo ku jooga wadanka قال له أنا كي رالي واحد مرتب كاره أنا كده إدريسو qofka qaxootiga ah ee magangeliya doonka ku jooga jamhuuriyadda Soomaaliland qudhi sano waxa ku waajibaa ku sheegnay ilaa ninka qodobkiisa war sheegnay hayaba waa in uu ilaaliyo shuruucda iyo dhaqanka wadanka u yaala oo ah ilaalinta dhaqanka iyo caadooyinka bulshada Soomaaliland hayaba adigu ilaali إذا كي جورج قلا إذا كي جورج قلا والله سيدا مشكلة والله هاي مالي والبشيت شيت مالي والبشيت أنا كي جاركا واروا محي أنا كي جاركا هاي تحتاج تاني محد قدونيسه مالي والبشيت والله يصير إنكار والله إنكار حق والله حق تاسات سر موتين واريا إحنا كم شيدار لنا قتك حق لك كل شيء ذات كوارتي حق هذا الباقي كوارت وريا أنا من بيننا نقول قراعنا أريا لا تشبات هاي لا تشبات هاي بدو كي قدون سوريا هذا الباقي كي سو قراعده لو ما قراع كتور من ده حال قد نقطة حال سلام سماري عليكم السلام والله بس كورم حال أريا ولا إنا كاسي أفري لما تسوي الباك وحو قراعة سبحان الله دميو لي هدو لي ميو قراعنا هدو دلكي واريه وارده مواد باو نودل كان لينا والله لا تشبات لا تنما هذا كو أنا كي هرده بجيبسو هيه أنا كي عرر الدبي هيه مالي والبشيد وبحي hortani kani waa nin dalaajiya هدو يا لا تنما سمكو كادو laakiin aan ku warramo wadanka wuxuu ku joogaa qaxoontinimo waxaanu magangeliye ka haystaa in wadankeena iyo dawladeena ayuu ka haystaa sharciga dalkeena u yaala Soomaaliland markaad eegto dastuurkeena qodobka 10aad firqadiisa koobaad waxay qoraysaa inay Soomaaliland qaadatay xeerka caalamiga ah ee adduunweynaha u yaala ayay inaga dalkeenuna qaatay ma garatay kaas oo ah ilaalinta dadka qaxoontiga ah ee magangeliya doonka qofku hadduu magangeliya doon yahay waa la siin karaa weeli hadii uu shuruudaha buuxiyay weeye magangeliya anigu ma dawladii baan maxay ka soo doon walaalmaye laakiin waxa ka reeban wuxuu leeyahay xuquuq alshaarnimo leeyahay
waa runoo jaarka ilaaliya baa la mar hadduu sharciga haysto oo uu qof qaxoontiye yahay oo uu dawladdeeni damaanad ka haysto in lagu tacadiyo in dib loo geysto xuquuqdaad leedahay mid la mudin buu leeyahay laakiin wuxuu baa ka reeban inta siyaasiga ah oo min baanu lahayn ma garatay dawladdeena waxba lama dooran karo waa qof bini aadmi waa qof xaq iyo xuquuq ku leh waa qof dalkeenii sifa sharciyo ku jira haddaanu isagu gardaamo kuula iman inaad adiguna ka dayso wey oo dawladdu way ogtay dawladdeenu way ogtay waa ka duwaan gashay waa nin magangelyo doona magangelyo siyaasadeed buu ku joogaa waddanka